kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka waxaanu idiin soo gudbinaynaa xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo magaalada Muqdisho ka wada olole ballaaran oo uu markaasi dagaal siyaasadeed iyo mid gacan ka hadalba uu markaasi kula galayo Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale qodobada uu ku diidan yahay dawladda uu hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud ayaan halkaan idinku soo gudbin doonaa dawladda federaalka Soomaaliya oo qaadaysa tallaabooyin ka dhan ah siyaasiyiinta markaasi mucaaradka ah ee ka soo horjeeda intaan guda galin waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kuugu horeysay na soo booqatay in subscribe-ka noo taabato muuqaalkan like saarto si dad badan uu u gaaro aynu ku bilownay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kulamo xoogan maalmihii u dambeeyay ka wada magaalada Muqdisho ayaa waxa markaasi xogaan u helnay ay sheegayaan in uu diyaarinayo ciidamadii ugu badnaa isla markaana uu doonayo in uu dagaal kala hortago dawladda uu hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud haddii ay qaado tallaabo ka dhana siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku sugan magaalada Muqdisho Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlayay kulan markaasi lagu qabtay xarunta xisbiga Himilo Qaran ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu markaasi sheegay in dawladda ay markaasi isku dayayso inay qaado tallaabooyin ay markaasi ku xakameynayso xubnaha mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho isagoona tusaale u soo qaatay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay horey u geysay deegaanka Raaskambooni inkastoo dagaal halkaasi markaasi ka dhacay lagu jibiyay oo ciidankaasi dib loogu celiyay magaalada Muqdisho Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kulanka ka hadlay ayaa ku nuuxnuuxsaday sida dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu fashilantay arrimaha amniga iyo sidoo kale qabsoomidda doorasho loo dhan yahay waxa uu dawladda federaalka uu ku eedeeyay in aysan diyaar u ahayn in doorasho dalka ay ka dhacdo isagoona sheegay in hay-adihii garsoorka dalka iyo sidoo kale maxkamad sare oo markaasi cadaalada oo dalka uusan lahayn iraahday maxkamadda dastuuriga oo dalka uusan lahayn in doorasho qof iyo cod la aado waqtigan inaysan munaasab ahayn waxaana sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu dawladda markaasi ku dhaliilay in ay ka gaabisay in doorasho dalka markaasi uu aado taabadalkeedna ay doonayaan muddo kororsi iyo in la caburiyo siyaasiyiinta farta ku fiiqayso daldaloolada markaasi dawladda Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo markaasi dalka madaxweyne hore uga soo noqday xilligii dawladdii kumeel gaarka ayaa waxa sidoo kale uu sheegay in dawladda ay isku dayayso awood iyo qori in ay u adeegsato siyaasiyiinta waxaana uu markaasi uga digay falalkaas isagoona sheegay in qori uusan xal ahayn oo dadkii hore u soo qaaday ay iska dhigeen isla markaana qori walba guri walba oo Muqdisho ku yaalana uu yaalo qori oo aan la isku dayin in awood markaasi la soo adeegsado isagoona markaasi uga golle in uu xasuusiyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa in xubnaha mucaaradka ay awood u leeyihiin inay iska difaacaan oo qoryahooda ay la soo baxaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran ayaa waxa markaasi uu hoosta ka xariiqay in dawladda looga baahan yahay in mowqifkeeda ay cadeyso isla markaana aysan u socon doonin aysan u suurtagali doonin cagajuglayn iyo sidoo kale in la caburiyo xubnaha mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana gudoomiyaha uu markaasi sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya halka ay ku mashquuli lahayd caburinta siyaasiyiinta ka aragtida duwan inta beddelkeeda ay ku mashquulsho sidii markaasi dalka doorasho uu u aadi lahaa waxa sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya uu ku eedeeyay in ay ka shaqeynayso kala tagga iyo sidoo kale burburka ku yimaada midnimada ummadda Soomaaliyeed waxa uuna sheegay in dawlad goboleedyadii xubnaha ka ahaa dawladda qaarkood ay markaasi ka tageen oo meel cidla ah haatan ay taagan yihiin isagoona sheegay in dawladda ay markaasi iyada mas'uul ka tahay isla markaana ay ka shaqeynayso sidii dadka iyo markaasi dalka loo kala qobqobi lahaa waxa uuna ku eedeeyay dawladda federaalka in deegaanka Raaskambooni ay geysay ciidamo markaasi aan halkaasi looga baahnayn waxa uuna sheegay in cagajuglaynta iyo faragelinta dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso dawlad goboleedyada qaarkood in ay doonayso taa mid la mid ah inay u adeegsato xubnaha mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho oo isagaba uu markaasi ka mid ka yahay
sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa dowladda uu markaasi ku dhaliilay in ay markaasi ka gaabisay arrimaha amniga dalka iyo sidoo kale doorashooyinka. waxa uuna sheegay in dowladda haatan kaliya ay ku mashquulsan tahay dhulboob iyo sidoo kale in lacagaha markaasi la kala boobo, isla markaana siyaasiyiinta ka aragtida duwana si gaara markaasi loo beegsado. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markaasi wada qorshe ay markaasi kaga hortagayso in ay ishubeeyaan xubnaha mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana amar dowladda hore uga soo baxay uu dhigayay in magaalada Muqdisho aan lagu arki karin wax qori ah, tabadelkeedna dowladda ay markaasi kaliya ay sugayso amniga, aan laga ogoleen qoriga amniga lagu sugayo ma aha mid kale. waxaana dowladda markaasi la fahamsan yahay in qorshahaasi ay ugu dan leedahay in ay markaasi ku caburiso xubnaha mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho, ayna u suurtagelin in markaasi ay ishubeeyaan oo dowladda markaasi tallaabooyinka ay qaadayso ay markaasi ka hortag ku sameeyaan. waxaana dowladda qorshayaasha markaasi u degsan ka mid ah sida aan xogta ku helnay in ay weeraraan guryaha xubnaha markaasi musharaxiinta mucaaradka ah oo ugu horeeyo sheekh shariif sheekh axmed. waxaana qorshuhu uu yahay in sheekh shariif haddii la weeraro kuwa kalena ay isgaabin doonaan oo isaga uu markaasi madax u yahay. waxaana markaasi dowladdu ay haatan wada weysha gowrac dibiga ha ku quusqaate, balse sheekh shariif sheekh axmed oo qorshahaasi fahamsan ayaa markaasi sheegay in aan qori markaasi lagu handadi karin, isla markaana guri walba uu yaallo qori ayna horey ugu soo daaleen. haatanna qofka ku cusub ee qori qaadaya uu yahay qof aanan markaasi faham fiican ka haysan, isagoona ugu baaqay in qori uusan meelna cidna geenaynin, tabadelkeedna laga shaqeeyo nabadda iyo sidoo kale wada noolaanshaha bulshada. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markaasi looga fadhiyaa in ay markaasi qanciso xubnaha mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho, isla markaana ay xaaladda dejiso maadaama haatan magaalada Muqdisho laga dareemayo xaalad kacsanaana xilli dowladda markaasi ay hareeyeen eedo ah musuqmaasuq, dhulboob iyo sidoo kale in la dhacay hanti markaasi dadweyne. waxaana haatan dowladda uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud kaliya laga sugaya in ay markaasi qabato doorasho si dalka oo uga dhaco markaasi isbedel